sida aan hore u tabinay dowladda Imaaraadka Carabta waxaa lagu wareejiyay galka amniga ee Soomaaliya heshiis ay ka buuxaan qodobo aan turxaan baxsanayn oo la saxay ansixiyeen golaha wasiirada ee federaalka ee Soomaaliya ayaa hadda la bilaabay dhaqangelintiisa iyadoo aan la horgeynin golaha shacabka waxaana durba Imaaraadka Carabtu ay iska diideen go'aano kala duwan oo ka yimid hay'adaha garsoorka iyo dhinacyo kala duwan oo u dacwooday waxaan eegaynaa 6 waxyaabood oo la qaaday tan iyo heshiiskaasi intii la meel mariyay wax ka beddelka heshiiska waa la diiday kadib markii aan baahinin nuqulka heshiiska ee rasmiga ah waxaan helnay warqad ay qoreen xubno ka mid ah la taliyaasha xagga sharciga ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliya taasoo ay ku dalbadeen in faahfaahin dheeraad ah laga bixiyo arrimaha la xiriira isticmaalka marinada laga soo galayo Soomaaliya sida badda koromada diyaaradaha iyo dhulka oo heshiisku awood fasaxa u siinayo dowladda Imaaraadka Carabta xaaladda ciidamada ay tababarayaan dowladda Imaaraadka cidda maamulaysa sida amarka loo kala qaadanayo iyo waajibaadkooda cidda yeelanaysa labada qodob oo la dalbaday in faahfaahin laga helo lama bixin wax dheeraad oo faahfaahsan sidaas oo kalena nuqulka qoraalka aan helnay waxa ay khubarada wasaaraddu soo jeedeen in dib loo eego qodobada heshiiska gabiixaantii gaar ahaan kuwa waaweyn ee taabanaya arrimaha muhiimka ra'iisul wasaare Xamse iyo golihiisa wasiirada waxba kama bedelin heshiiska la ansixiyay sida aanu ku aragnay nuqulka rasmiga ee la meel mariyay 2 diyaarado gantaal xambaara ayaa la geeyay Soomaaliya dowladda Imaaraadka Carabta oo ka faa'iideysanaysa waqtiga iyo fursadda ay ka heshay Soomaaliya ayaa Muqdisho geysay diyaaradaha aan duuliyaha ahayn ee drone loo yaqaano kuwaas oo shaqooda u tahay inay bartilmaameedsadaan aag kasta oo ay uga shakiyaan inay joogaan ciidanahooda ka soo horjeeda ama loogu marmarsiyoodo la dagaalanka argagixisada December 2017 haddii ciidanka Imaaraadka ka amar qaadanaya xilligaa joogay Muqdisho ay weerareen guriga Senator Cabdi Qaydiid iyagoo sheegay inay dabagal ku hayeen qof laga shakisan yahay mar kale ma jiraan wax u diiday inay qaadaan howlgallo lagu beegsanayo shaqsiyaadka ka soo horjeeda siyaasadooda kuwaas oo hadda loo adeegsan karo diyaarado wax basaasa howlgalkana fuliya mid ka mid ah goobaha hore ay u isticmaali jireen dowladda Mareykanka oo ku yaala gudaha garoonka Aadan Cadde ayaa lagu wareejiyay oo ay hadda ku jiraan 2 ka mid ah diyaaradaha iswada ee gantaalada xambaara oo ay leedahay Imaaraadka Carabta 3 Imaaraadka oo diiday amar ka yimid hay'adaha garsoorka Soomaaliya maxkamadda gobolka Banaadir ayaa 6 bishii Febraayo ee la soo dhaafay amartay in la joojiyo dhisme xero ciidan oo laga dhisay deegaanka Gubadley markii ay dadweynaha goobtaas la cabasho u gudbiyeen laakiin saraakiilka amar qaadata dowladda Imaaraadka Carabta ayaa iska diiday go'aanka maxkamadda waxaana xabsi loogu hanjabay qaar ka mid ah saraakiisha hay'adaha amniga gobolka Banaadir oo goobta tagay ila waradyo xoogaal ayaa cadeynay in qaar ka mid ah difaacayaasha ay qabsadeen muwaadiniinta u cabatay hay'adaha garsoorka loo hanjabay in naftooda waayi doonaanna loo sheegay haddii aysan dhulkaas iska dhaafin taasoo muujinaysa dhaqangalka in heshiiska Imaaraadka ee dhigayay in maxkamadaha dalka uusan qaban karin shaqaalahooda iyo howlgallada ay ka wadaan Soomaaliya 4 ciidan ajaanib oo soo wajahan sida ay cadeynayaan ila waradyo dhanka ammaanka dowladda Imaaraadka Carabta waxa ay bilaabi doontaa maalmaha nagu soo wajahan sababta bulida in ka badan 1200 oo askari oo ajaaniba kuwaas oo ay geenaysa salgiyada ay ka furayaan gudaha Soomaaliya waxaana mas'uuliyadoodu ay noqonaysaa in howlgallo la qaadaan ciidanka ay tababartay dowladda Imaaraadka ee Soomaalida ciidanku waa calool shaqaystayaal u kala dhashay dalal kala duwan oo Afrika waxaana hore loo geeyay dalal ay ka mid yihiin Yemen iyo Liibiya waxa la keeni doonaa goobo kala duwan oo ka mid ah Muqdisho iyo waqooyiga Soomaaliya 5 ciidamo 90 cisho tababar soo qaatay oo Soomaaliya oo la soo celinayo dowladda Imaaraadku waxaanu barnaamijkeennii hore ku sheegnay in heshiis la gashay dowladaha ay ka mid yihiin Ethiopia Urdun Uganda iyo Masar ciidankii ugu horeeyay oo ciidan Soomaaliyeed oo la qaaday November sanadkii hore ayaa hadda dib loogu soo celinayaa gudaha Soomaaliya kuwaas oo tababar ku soo qaatay dalka Uganda 90 cisho ee la soo dhaafay sidaas oo kale cutubyo ka mid ah ciidanka oo 2500 oo tir ahaan gaaraysa laguna tababaray Ethiopia ayaa dib loo soo celin doonaa iyadoo 80 ilaa 90 maalmood ee la soo dhaafay tababar kala duwan la siiyay taas oo Imaaraadka waxay u adeegsan doonaan Soomaaliya 6 madaxweyne Xasan oo qarsoodi ku tagay Imaaraadka inkasta oo madaxweynaha Soomaaliya uu qarsoodi ku tagay Imaaraadka Carabta haddana waxa la aaminsan yahay safarkiisa uu la xiriiray kasoo howlaha caafimaad inay la xiriirtay dhaqaale raadin dowladda Soomaaliya ay Imaaraadka ka doonayso maadaama heshiiska la meel mariyay sida ay la wareedyo muhiim ah sheegayaan dowladda federaalku ma helin dhaqaalihii ay ka sugaysay dowladda Imaaraadka Carabta 7 ugu dambeyn
imaaraadku waxa ay bilaabeen hadda u yeeritaanka madaxda dowlad goboleedyada gaar ahaanna kuwa koonfurta iyo bartamaha oo ay dadaal badan gelinayaan sidii ay aragtidooda uga dhaadhicin lahaayeen loogana ansixin lahaa in la furo xero militari oo laga samaynayo deegaanada galmudug iyo hirshabeelle taasoo qayb ka noqonaysa howlgalka imaaraadka carabta ee Soomaaliya oo ay doonayaan dhammaan inay kula wareegaan Kismaayo, Boosaaso, Muqdisho, Dhuusamareeb iyo Jowhar ayaa waxyaabaha ugu waaweyn hadda imaaraadku ay diiradda saarayaan si saldhigyadooda ciidan ay uga hirgeliyaan kuwaas oo loo qaybin doono ciidamada dhawaan la soo celinayo. ma ogtahay maantaba inaad ka maarantid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Ameerika baysi waxa uu ka qabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka